kulankan oo looga hadlayay adkeynta amniga iyo wada shaqeynta maamulada Puntland iyo Galmudug iyo sidoo kale shacabka labada maamul oo si wada jir ah roobka Google kaga dagay deegaanada galbeedka iyo sidoo kale waqooyi gobolka Mudug bartamaha Soomaaliya ayaa lagu qabtay deegaanka Gobsho oo ka tirsan deegaanada maamulka Puntland kulanka waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Mudug ee Galmudug saraakiisha ciidanka xasilinta ee militariga Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Mudug odayaal dhaqan iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi qaar ka tirsan waxgaradka deegaanka Gobsho iyo sidoo kale kuwa soo naqraacay ee ka yimid dhanka dowlad goboleedka Soomaaliya Galmudug ayaa wada jir u hadlay sida wanaagsan oo dadka walaalaha ah han noqdeen kuwa soo guurtida ah ama han noqdeen kuwa hore deegaanka u deganaa sida walaalnimada ah oo isu soo dhaweynta iyo wax wada qaybsiga iyo isu calool xarnaanta iyo wada tashiga iyo midnimada iyo ballanta iyo adkeynta nabadgelyada ay uga wada dardaarmeen aad baanu uga mahad celinaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa intaas iyo wax ka sii badan oo khayr ah inuu ayagana siiyo annagoo dhanna siiyo dhulkoo dhanna nabadgelyo nooga dhigo waxaa caddaynaya dadka walaalaha kulli waa wada walaalo وكلود ده علماء ده عمليين ده معمولين أتاجن إلهي محل ومهد علينا إنه وحنا لنا خير بالله نسي إلهنا وحرشينا المدر عام نود جرى الله نسيه إن سيد قرحان أو والله نوصل دوين أيقون أي نوجي مادنا وهو محد علينا gaashaan la cali naasir oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xasilinta ee militariga Soomaaliya ka howlgala gobolka Mudug ayaa kula dardaarmay shacabka Galmudug iyo Puntland inay wada jir kaga shaqeeyaan amniga amnihaana ka saraakiisha ciidanka xasilinta gobolka Mudug militariga waxaana wixii amniga nooga aadan kaalinteena inaan ka qaadano hadda wax dhibo hadda taagan ma aragno ilaahayna nagu markeena waxaana wixii soo kordhay inaan ka wada socono dadka maamulka Gobsho ay wada xiriirno wixii baahiyaha jira insha Allah oo intaas gobolka ka jawaabi doona waxaan rajaynayaa gobolku inuu la noqdo maamulada ula noqdo anama meesha yaala meel biidhaas u baahan baa jira gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Mudug ee Galmudug Axmed Maxamed Shir Qoodar ayaa tilmaamay in amnigu gunigu yahay wada noolaanshaha shacabka ilaa 3 maalin 4 maalin ayaan kormeerkaas iyo ku jirnay muxuu ahaa dadka guuray iyo dadka soo dhaweynayaan dhaxmarin waxaan soo aragnay wax ilaahay looga mahad celiyo ilaahay looga shukriyo dadka meesha joogana looga mahad celiyaan soo aragnaa anaga waxaan marqaati furaynaa ka maamulahan afka gobolkan oo ku hadlaya inaan soo aragnay dad wada dhashay oo xabiib ah oo ismagan gelinaya biyaha wada cabaya isku faraxsan isku qaadumeynaya si qurux badan daaqooda u daaqaya dadka gobolka Mudug ku abtirsada ilaahay inaan ku mahadino kulligeen nabadaas abaarta ilaahay baa naga bixinaya baasha cali xaashi warbaahinta qaranka deegaanka Gobsho.